kulan wadatashi ah oo ku saabsan arrimaha sohdimaha iyo federaalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Cadaado waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socday maamulka Galmudug iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Cadaado. Kulankaas oo uu soo qabanqaabiyay guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka Liibaan Cali Sahal xogayaha guud ee guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka Soomaaliya ayaa ku horreyn faahfaahin ka bixiyay kulankan. marka hadda waxa soo siyaaday dawlad goboleedka markay xuduud lahaato ayadana wax kasta oo la leeyahay waa maamul ama waa dawlad inay xuduud lahaadaan waa laazim wax marka xuduudka ay lahaan lahaayeen ayaa ama sohdinta ay lahaan lahaayeen ayaa waxa kamid ah micnihii in ayadana xariiqmo loo sameeyo marka qorshe ahaana waana wadna hadda waxa wadanka ilaa 7 xariiqood baa galays marka laga soo bilaabo Puntland Somaliland Puntland mid u dhaxaysa Puntland iyo Galmudug mid u dhaxaysa Galmudug iyo Hirshabeelle mid u dhaxaysa Hirshabeelle iyo Jubbaland mid u dhaxaysa iyo sidoo kale koonfur galbeed iyo Hirshabeelle iyo gobolka Banaadir oo ayagana noqonaya laba marka arrimahaas oo kale waan ka wada shaqeynaa markii degmo ahaan la fiiriyana degmooyinka waxa mid walba xuduuday leedahay maamul kasta hadda Cadaado maamul buule maamulkiisu wuxuu leeyahay degmadan inta ay ka kooban tahay hore u calaamadaysneedo waa in la yaqaano oo ah degmada Cadaado inta dhulka ay ku fadhido degmada Cadaado marka dhulka ku fadhida in la cayimo oo la xaqiiqsado oo la hubsado waxay faa'iido leedahay waa nidaam ahaan maamul ahaan number 1 waa administrative boundaries kii waay marka arrimahaas hadda anagana aan ku nimaadnay inaan reecadaada ahaan aan helno contribution keena oo ku saabsan arrimahan federaaleynta wadanka iyo aragtidiina ku saabsan federaaleynta sidoo aragtiin gudoomiye ku-xigeenka degmada Cadaado Nuur Yarow Xayle iyo wasiir dawlaha arrimaha gudaha Galmudug Cumar Guureeye ayaa tilmaamay in ay muhiim tahay in bulshada laga tala geliyo doodaha ku saabsan arrimaha federaalka iyo sohdimaha hadda xilligan la taagan yahay waxa caqabado kale ku soo biiray hay'adihii NGO-yada waxay ku soo biiriyeen in degmooyinkii GPS inta la geliyay ay soo saareenba hadda tusaale ahaan waxaan arkay Cabdulwaaq iyo Cadaado kale Cadaado meel 5 kilomitir u jirta waxa leeyahay Cabdulwaaq Cadaado meel kale oo Dhuusamareeb jirta waxa leeyahay waa Cadaado marka ujeedka ugu xoog badan in anaga faham ka qaadano waxa rabnaa marka guddiga madax bannaan waxa ka codsanayna si gaar ah u codsanayna mar walba degmooyinka waxyaabaha ay fikirkooda sida saxda ay ugu dhigtaan isku raacaan in sida ay tahay loo soo bandhigo ra'yiga aad maanta dhiibayso waa kii mustaqbalka berri deegaankaaga iyo dadkaaga lagu dhaqi lahaa way ama Soomaali oo dhan maartay muxuu ahaayeen qayb ka noqon lahaa way taladeeda ama xuduudeeda ama soodimeeda taasna dadkan kula dardaarmaya haddii aan leedmo Cabdi Xasan Awowe warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Cadaado.